ciidamadii Jubbaland ee isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka lagu soo daabulaya magaalada Muqdisho dhowr diyaaradood oo kala duwan ayaa soo qaadaya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo dalbaday in ciidamadan loo keeno iyo abaalmarino khaas ah oo ciidamada lagu doonsiin doono ballanqaad ay dowladda federaalka Soomaaliya u sameysay askari walba oo ka tirsan kuwa Jubbaland ee ka soo dhiiba ama iska soo dhiiba in la abaalmarin doono lana dalacsiin doono saraakiil ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo wada maanta darajooyin nooce la siin doonaa Axmed Madoobe godkiisa ayaa biigo soo galay haddii ciidamadan 80ka ah ee dowladdu ay sheegtay la dalacsiyo lana siiyo darajooyin iyo abaalmarino ciidankii Jubbaland ee xabsiga ku jira 13 sano waa ay soo koosanayaan haddaba macluumaadkii ugu dambeeyay waa sidee saaka xaaladda Raskamboni maxaa ka jira in abaabul dagaal uu socdo muuqaalkan ayaan kula wadaagayaa muuqaalka lagsar laagtadu waa inuu muhiim sii shargaray wixii aragtiya qaybta hoose ee commentiga saake waxaa magaalada Muqdisho ku soo qulqulaya dhowr diyaaradood oo kala duwan kuwaasi oo sida ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ee shalay isku soo dhiibay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ciidanka waxaa ku jira kuwa staff qaas u ahaa Axmed Madoobaha Jubbaland waxaana taasi ay cadeysay in qorshaha ugu weyn ee ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay in Jubbaland oo nabdoon ay la wareegto guud ahaan ammaankeeda ciidamadan ra'iisul wasaaruhu ayaa dalbaday in loo keeno waana loo soo qaadayaa qaarkood ayaa Muqdisho soo gaaray soo dhaweyn cajiib ayaa loo sameynayaa kadibna abaalmarino darajooyin iyo sidoo kale lacag iyo qarashaad ayaa laga safaya tan waxa ay wado u fureysaa ciidamadii xabsiga ku jira 13 sano la soo dhaaf waxa taasi ay sidoo kale muujinaysaa in ciidamadan Jubbaland ka tirsanaysa soo dhiibay ee la abaalmarin doono in tusaale ay u noqoto xitaa kuwa sida qaaska u ilaaliya Axmed Madoobe ee 13 sano aan darajo helin oo aan dhaqaale helin oo xitaa aan xor ahayn 80 askari ay dowladda federaalka Soomaaliya shaacisay in shalay ay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda ee Raskamboni ciidamadan Axmed Madoobe waxa ay ahaayeen kuwa daacad ah oo aaminsanaa waxa uu u diray inay weeraraan fariismaha Raskamboni laakiin ciidankii ayaa iyaga hubkoodii isku dhiibay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya si nabada ayayna ciidanka dowladdu gacanta ugu galeen ma jiro wax dagaal oo dhacay laakiin taliyaha ciidankan hogaaminaya ninka lagu magacaabo Xasan Ciraaqi waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu aysan u socon in la dagaalamaan ciidanka dowladda ee Jubbaland waxa uu sheegay in dhammaantood ay yihiin ciidan dowladeed oo aanu wax dagaal ah aysan u baahneen laakiin waxa uu ku baaqay in ciidamada Jubbaland badankood ay soo dhiibaan si nabad iyo xasilooni ay ugu noolaadaan tan waa fursadii ugu weyneed ee soo martay dowladda federaalka Soomaaliya ama waa fursad dhabarjab ku ah Axmed Madoobe sanadihii la soo dhaafay Axmed si awood leh ayuu uga talinayay Jubbaland ma jirin askari ka daba hadli karay ama xitaa amarkiisa ka hor imaan karay laakiin maanta ciidamadii ayaa garbihiisa ka baxaya staafkiisa ayaa isdhiibaya qorsho walba oo Axmed uu diyaariyana dhabarjab weyn ayuu la kulmaya tani waxa ay cadeynaysaa qaabka Axmed Madoobe uu fashil u dhex taagan yahay dowladda federaalka Soomaaliya haddii saakay markii ay yimaadaan ciidamadan ay siiso darajooyin xilal iyo sidoo kale qarashaad fara badan waxa ay sidoo kale ciidamada kale ku dhiiran doonaan ee Jubbaland inay is soo dhiibaan ciidamada sidoo kale dhanka kale haddii aynu eegno ciidamada dowladda Soomaaliya waxay isku ballaariyeen Raskamboni Buulaxaaji ilaa deegaano kale halka duleedka Buulaxaaji ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada maamulka Jubbaland gaar ahaan ciidanka Labraqaad ee daraawiishta ah lama oga waxa dhici doono sababtoo ah shalay dagaalkii ugu horeeyay ayay fooda istareen dhinacyada ciidamada Jubbaland waa loo awood sheegtay sababtoo awood kuma dham ciidamadan waa ciidamada dowladeed hub iyo sanad military wataan laakiin kuwii Jubbaland dib ayay isaga laabteen sidoo kale Jubbaland waxay qorsheynaysaa in dhanka badda ay ka weerarto Raskamboni laakiin waa lagu fahmo qorshahaasi ciidamada dowladdu waxay sidoo kale qaateen doonyo kuwaasi oo durbaba bilaabay in ay ammaanka badda la wareegaan badda bariga iyo sidoo kale hawada ayaa Axmed Madoobe lagula dagaalamaya taasi oo fududeyn karta in Axmed Madoobe uu tanaasulo lagana takhaluso guud ahaan Jubbaland ay gacanta dowladdu ku soo laabato sidoo kale ciidamadu waxay heleen doonyahan kadib waxay bilaabeen in ay ilaa Raskamboni ilaa Kismaayo ay tijaabiyaan howlgalkooda badda doonyahan waxa dowladda federaalka Soomaaliya ay marsiisay hawada iyada oo durbaba la dhigay xeebaha Raskamboni markaasi kadibna waxa ay ka dhaqaaqeen halkaasi iyagoo isku dayo ballaaran bilaabay tani fursad kale ay u tahay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ku sugan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan Badhaadhe waxa ay fursad u siinaysaa in Axmed Madoobe laga soo galo dhanka badda sidoo kale dhanka dhulka iyo hawada admis indhaha ay ka daawanaysaa mana jirto tallaabo gooni oo ay qaadi karto Axmedna iskuma filna sababtoo ah ciidamada uu haysto kama badna Kismaayo ammaankooda iyo ammaanka Axmed Madoobe waxa uu sidoo kale diyaarsanaya Axmed Madoobe halkii uu kaga baxsan lahaa ammaanka uu ku heli lahaa
dowladda federaalka soomaaliyana oo kaga dhuuman lahaa dhammaan fursadahaasi axmed madoobe dowladdu ma sii doonto saan aaminsannahay oo ay falanqayaashu sheegeen taasi oo suuragal ka dhigi karta in axmed durbaba intaan la gaarin howlgal weyn uu ka bixi doono kismaayo 13 sano ayuu ku sugnaa ma jirin tallaabo gooniya oo axmed uu qaaday mar kale ayuu rabaa 5 sano oo soo aadan inuu joogo taasi oo noqonaysa 18 sano oo uu madaxweyne ka yahay Jubbaland laakiin dowladdu waa diiday go'aanadeeda waxaana axmed madoobe ay ku tilmaamtay inuu baalmaray sharciga isla markaana uu jabiyay xeerar heshiis ah oo u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo axmed madoobe dhammaan qodobadaasi ayaa aad u adag waana wax kale oo albaab kale u furaya in dowladdu ay la dagaalanto axmed madoobe iyo ciidamadiisa dhanka kale haddii aynu eegno falanqeyn ayaanu geli doonaa mid ka mid ah dadka aadka ugu dhuundalola siyaasadda Jubbaland lana socdo ayaa waxa uu falanqeyn toosan ugala sameynayaa qaabka ay wax noqon doonaan iyo Jubbaland sida ay wax noqon doonto ciidanka uu maanta ku digdigleynayo darajo male oo mushaar joogta male oo isbitaal male oo daryeel caafimaad male oo wax alla wax ay leeyihiin male waxaa jira wiil yar oo u maleynaya 2014 inay ahayd iyo 13 midka inuu dhaawacmay maskaxdan jug ka gaadho maskaxda dhan duleesho wallahi billahi talla waxaan maqraatigahay inta la soo qaado ayaa geedka waxa la soo dhigaa madaxtooyada ku horyaal markii ugu dambeysay $100 markay gaadho waxa la soo hordhigi jiray geedka madaxtooyada horta la soo hordhigi jiray fighter dagaalama Jubbaland saa u noqday waxaan ogahay in waliba aan saaxiibanahay oo maalinka xabad ku dhacaysana isla soconay oo hadda baar la soo magaalada Kismaayo gaari gacan baa lagu soo riixay madaxtooyada la soo ristaajiyaa waa markii aan ugu dambeysay madaxtooyada in la soo gaaro war ma hayeen 2 maalmood 3 maalmood bay dadku ku sii marayeen isagoo halka gaari gacan saaran war ciidanka axmed madoobe maanta ku digdigleynaya moona kuwa sida u dayacay oo saa u galay ahayn idinku ciidan oo ma fikiraysiin aqli ma lihidin miya ma xisaabtamaysiin miya 13 sanaad kooyal dabada ka saaran tahay dablana waa tahay dable waa daawacantay cid wax kugu falaysa male waa dhimatay maalinkaas hooyada reerkiina kugu dambeynaysa yaa reerkiina ugu dambeynaysa xuquuq la siiyo iyo wax la tar carruurtaada ugu dambeynaysa ciidan ku faanayo oo uu leeyahay maxaan ku radaayay ciidan baan haystaa degdeg baan haystaa ciidanku mayna kuwa ahayn kuwa uu Xamse Cabdi Barre xuquuqda u raadinaya mayna ahayn kuwa Xamse leeyahay war aynu ciidanka dawladda ku darnaa adoo sidaada u xukuma aynu number siino mushaar helaan xuquuq helaan mayna ahayn dhaawici hadda buulxaaji u dambeeyay wiilashii ugu dardarnaa yarkii madaxay gaari ku qarxay anaa adeerkiisoo ka warhaya Xamse Cabdi Barre qaado Turkiga yaala Axmed Madoobe 13 sano u shaqeynayna Kismaayo soo dhaafin kari waay Xamse intuu halkan ka qaaday uu Turki geeyay Turkaada lagu daaweynaya wallahi lagu hagoy ciidanka uu ku digdigleynayo ciidankayga hayo 5 wiil ee hadda nabad sugidda ee Dreesku uu xiray maartay waaqac aan la socon marka laga soo tago ciidanoo meedan ciidanka ahayn meedan ku Axmed Madoobe saa ula dhaqmay ahayn kuwa xuquuqda ka hortaagan yahay kuwa darajada ka hortaagan yahay kuwa ka hortaagan yahay maxaan ku radaayay inay noolaadaan oo ka hortaagan meedan idinka ahayn saraakiilay meedan ahayn kuwa ku farxayo idinkoo gaajaysan oo bahdilan oo aabihiin wasay oo guriga leedin kala baxay inta wajigtiin $100 madaxweyne nasiib $100 meedan kuwa ahayn maanta fursad iyo chance badaysatiin maanta waxaad haysatiin waqti aad isugu heelin kartiin baad haysatiin maanta waxaad haysatiin waqti aad Axmed Madoobe kaga argoosan kartiin baad haysatiin argoosigan ka hadlaya ma ahan in xabad la isku rido in xabad la hor fadhiisto ma argoosigan ka hadlaya waa inaad dhinac uga istaagtiin wax socda ciidan baad tihiin dhinacna uga istaagtiin ciidanka sida xuquuq laanta waa ee kuwa hadda buulxaaji darad ku soo dhaawacmay reeroodii ay hayaan war ma askari qaran oo qaranka u dhaawacmay oo qaranka Dreesku u xidhnaa oo reerkiisa dhaxanta iyo hooga uga maqnaa carruurtiisa laga yaabo inay iyagoo xaalad ku sugan uu qaranka dartii u adeegay uga maqnaa markuu soo dhaawacmay si carruurtiisa ama hooyadii loogu keenaya oo u haynayaan oo u daryeelayaan oo baahidiisa u daboolayaan macquul ma dawladnimo maaha حتى جبهة النمام ما هو والله جبهة ده مركي أنا لا إيه
jabhadda ayaad waxay samaysa daryeel caafimaad samaysa oo daryeel carruureed samaysa intay karto adoo dawlad wata oo nidaam dawladeed wato dawlad u dhimanaya waryaha gabdha foodle oo xunxun oon jubbaland waxba u gelin oo qayilo khamrida cabaa egan la dejiya markaas 30 kun iyo 70 kun oo dollar ku baxda dadka jubbaland hadda uu wax u ah axmed madoobe inuu tayo xumida rabo inuu jubbaland ku sii hayo war tima jarihiisii timaha u jiriyay baa ya xildhibaana naagti cuntada u karinaysa baa xildhibaana dad tayala jubbaland lagama waayo inuu capacity-ga leh inay xildhibaano noqdaan ama wasiiro noqdaan dadka kuwii ugu liito wasiiro ka dhigtay kuwii ugu liit yaa wasiiro waa ruux alla ruuxi tayada lahaana dalku ka saar ciidan oo marka idinkaan idinku socday bal xuquuqda maanta la idinku digdigleynaya la idin sheeganaya sheeg ii sheegaba ilaahay baa idinku dhaariya ii sheega buule xaaji baad 24 saac dagaal kaga jirtaa cabdilla biro la 24 saac dagaal kaga jirtaa baarsanguuni baa 24 saac dagaal kaga jirtaa baarsanguuni waxaaba kuu dheer kaneeca iyo biyo kuu dheer xabadda bal ilaahay baan kugu dhaariye axmed madoobe kugu digdigleynaya maxaa xuquuq ku siiyay waa daawacantay haddaadan dhimanin hadda kuwa nool ee daawanaya waa daawacantay bal maxaa xuquuq dhaawac odash xaggee lagu geeyey gabadha umusha amiyaan lagu ag dhigin miyayna cawradaadee adoo askari qaran ah oo dadka ugu sharaf badan maan gabadh umula lagu soo ag dhigin oodaan isku sarirta ku xigta maadan oolin xataa container buu idin quuri waaya inood meel idinka dhiso hoteelka kaliya isagu Nairobi ku leeyahay waa 70 kun oo dollar weeyaan uu ku iibsaday isbitaalkiinana 100 kun oo dollar baa dhisaysa haye ma nin bal xamaali u tiin marka ma nin bal xamaali u noqonaysin ma liibaanihi lagu liibaanay miyaad weligan sii ahaanaysin magacaan isaga bixiyo oo hadda axmed madoobe magacaan bixiyo ma liibaanayaashii lagu liibaanay weligiin ma liibaanayaashii lagu liibaanad ahaanaysin maanta 5 maalmood ee doorashadu joogto waxaa laga yaabaa kuwa saraakiisha inuu $1,000 iyo $500 siiyo laakiin maxaa ka dambeeya 500 maxaa kaaga dambeeya qofku waxaa fiican waxa soo socda inuu ka fikiro war waxaan ognahay oon ka baxanahay wiilashii noo shahiiday oo carruurahoodii wallahi billahi tallahi Puntland iyo laga riday ehel la raadsaday ehel xagee degan yihiin eelkoodii Puntland bay degan yihiin geeya xagee degan yihiin waxay degan yihiin koonfur galbeed geeya ehelka xagee degan yihiin muqdisho degan geeya waa wiilashii inaga noo shahiiday weeyaan oo khawaarijta la dagaalamaya haye maanta markaas waxa la idin leeyahay ciidan baa tihiino maxay baa tihiino war axmed madoobe wuxuu rabaa noloshiina ku socdaa waa dad qalato wallahi billahi tallahi inuusan jacayl iska daaya adduunka inaad hadduu idin karayo Robert buu idin ka dhigan lahaa wax bahalkan aan waxba dadka weydiinin maartay gacan ku samaysku idin ka dhigan lahaa axmed madoobe hadduu karayo hadduu awoodayo laakiin Robert uuna isagu sameeyno rabaaniya badu tihiinba Robert isagu uusan samaynin oo rabaaniya badu tihiin axmed madoobe wiilasha idinka soo taga dhaawaca muqdisho ku muuqaalada soo duubay kuwan soo duubi karinba bal waraysta kuwa kismaayo jooga dhaawaca waraysta ee lugaha go'an ee dhabarku wada go'an ee paralyska ee maartay gacmuhu go'an yihiin in kici karinaysa xarada bal waraysta ilaahay baa idinku dhaariyay waraysto hoos su fiiriya bari adna kaasoo kala mad noqonaysa ka dul marmaraysid ee dhaawaca walaalka ah ee shalay markuu xooga banda si garab dagaalamaysin sam kaasoo kala noqonaysa xabad marka intay kugu dhicay baad ka sugaysaa bas hawsha marka ha qaadanina hawshaasi ha qaadanina xuquuqdiina laga shaqeynaya saad u heli lahaydeen saa number xoog u heli lahaydeen wiilka idinku garab dhaawacmaya baarsan guun idin la jooga ciidanka federaalka ama idin la jooga Cabdilla Biroole ama idin la jooga maaragtay maxaan ku raadayay idin la jooga Buule Xaaji xabad markay ku dhacdo isla markaaba helicopter baa soo qaasay idinka soo qaasay idinka dhaawiciinina uu uraya isku xuquuq baatiin idinkana ka dagaal badan ciidankaas waa wiilaad isku xuquuq tihiin isgarab tihiin isku mid tihiin maxay is dheertiin
waxaase dheertiin xuquuq dowladeed baa haystaa adiguna xuquuqdii dawliga ahayd aad u lahayd yaad u duudsiyeysaa marka dowladdu waxay idin soo wadaa number xoog baa laydin siinayaa waxaa laydin siinayaa xuquuqdiinni baa laydin siinayaa waxaa laydin siinayaa wax walba oo nidaam dowladeed aad ku heli lahayd ama idinka maqnaa baa yaa laydin dhammaystiraya marka hadduuse axmed sii joogo oo isku caana shubo sidaa unbaad robertka unbaad ahaanaysin boombalahaas axmed madoobe iska leeyahay ee markuu soo dhaawacmana la tuuro markuu xoogga leeyahayna sida dameerkii la rabto unbaad ahaanaysin weligiin isma bedelaysiin weligiin wallahi isma bedelaysiin kuwaa darajo la siiyey baa lagu leeyahay waxmadow darajo siiyey waxmadow waa madaxweyne dowlad suu darajo ku bixin karaa xilka maalinka laga qaado ninka hadda kabtan ahaa ama gaashaanla ahaa ama gaashaanla sare ahaa ee jubbaland joogay xilka markii laga qaado dab lu noqonaya ciidanku dabada kaga faylaya xaggee adduunka ka dhacdaa adduunka xaggee ka dhacdaa ma majnuun baa tihin ma dad waalan baa tihin aqligu ha shaqeeyo aqligu ha shaqeeyo isbeddelkana haddaad wax u hiilinaysin isbeddelka u hiiliya isbeddelka u hiiliya isbeddelku waa caafimaad waa neecaw waa idinka dantiinna waa carruurtiinna mustaqbalkeeda carruurtiinna iskuullada ka bixin laadiin carruurtiinna adigaa waxbarasho la-aana oo maaragtay maxaan ku raha askari ku ah oo sili cadarta ku shaqaynaya wiilkaaguna inuu waddadaad martay maro waa adiga aqli xumadaada iyo garaad xumadaada haddaad maanta ka shaqayno isbeddel inu yimaado iskuulla dowladdu leedaho friyaan helaynaa oo carruurteenu dhigato waxaan helaynaa kharashaadkii haddayna iskuulla dowladda la dhisin xataa aan carruurteena iskuul ku geysan lahayn baan helaynaa aqliga intaad ka shaqaysiisiin axmed madoobaha u heelinina wiilasha ciidanka intaasaan leeyahay saraakiiley ciidanka idinkaa hogaamiya berrin idinkaa waxa laydinka weydiinaya waxaa kalood ogaatiin xamse cabdi barre keligiis ma ah ninkii xamse cabdi barre usoo haliilayow xamse rag la dhashaa ka soo horeeya keligiis ma ah maanta waxaad samaysid axmed madoobe kuma garab istaagaya wallaahi keligaa baad noqonaysaa reerkaagaanad kula noqonaysaa nin musharax haddaad wax yeeshid qof shacaba musharaxa taageer haddaad wax yeeshid haddaad cid kale wax yeeshid adiga aabba ku dhahaysaa gadaal kugu soo noqonaysaa waana wax qormaya oo la qorayo weeyaan oo qormaya wax la iloobaya maa waxa maanta la sameeya nidaamkaasaad ku dhex jirtiin ee saraakiisha ku tihiin waxay idinka qorayaan maaragtay maxaan ku wax saxa ha ahaado yaan laydinku dhibaataynin dadkiina yaan wiilashiina laydinku dhibaataynin yaan walaalihiin oo berri aad walaalo tihiin oo shalayna walaalo soo ahaydeen maanta waxay idin dhex yaalla siyaasada yaan laydinku dhibaataynin anigu waxaan rabaa in laysu daayo siyaasiyiinta ciidanku inay gebigoodaba ka dhex baxaan sifo dalku u badbaado sifo keligii taliyuhu u ogaado damiirku ugu soo noqdo hadda wuxuu idinku hanjabaya waa idinka uu silaca iyo rafaadka iyo hoogga idinkaystu ku hanjabayaa sifo aqligu u soo noqdo ka dhex baxa ciidankow siyaasadda isu daayay ragga siyaasiyiinta idinkana hiila idin noqonaysaa shacabkiinana hiilay u noqonaysaa carruurtiinana hiilay u noqonaysaa marka ciidanka saraakiil haddaad tihiin ka dhex saara haddaad ka dhex saari weydiin waxaad ogaateen wax walba oo wakti xaadirkan dhaca horta isbeddelku wuu dhici isbeddelka cidna laga baryi maayo wuu dhici waa go-aan inuu dhacaa axmed madoobena wuu dhici adiga laakiin waxaad geysatay axmed madoobe siyaasi buu noqonayaa berri waa dhoofaya waddanka waa ka baxayaa markay doorashadu dhammaato markii laga guulaysto waa dhoofaya weliba waa la sagootin ka ku hadhaya ee lala xisaabtamayo een dadka ku dhex noolaan doonin ee aabbihii wasi doona ee maaragtay kii dadka laay noqon doona waa adiga sargaalka marka maanta ayay kuula eg tahay berri waxaad ku noolaan lahayd maantaad samaynteeda lagaa rabaa jubbaland dadkuguma la jeclo badnid laakiin maanta maadaamaad sargaal tahay badbaadadeeda waad uga la jeclo badnaan kartaa waad uga nafurid badnaan kartaa marka gees uga istaaga ciidanow siyaasiyiintana isu banneeya hadday sa dhacdo inaad gees uga istaagi weydiin wallaahi bilaahi tallaahi eedda meeshaa ka dhacday iyo ceebta ka dhacda iyo dagaalka ka dhacay dad ku dhintaba adiga sargaalka lagu raacanay shacabka waxaan leeyahay guryaha ku jirina caburiskii waa dhammaaday
enough is enough. axmed madoobe intaa ka badan nima sii caburin karo. keligii taliyuhu waqtigiisu waa in yaroo caburisa, in yaroo cagaha dhulka lagu hayo ayuu keligii taliyuhu dadka caburin karaa. waad arkayseen dowladihii carabta wuxuu ku dhacay in yar oo cagaha shacabka dhulku hayeen bay mid walba lagaga takhalus. keligii taliyaha shacabow maanta aad noloshiinu aad u taagan tihiin inaad maaragtay maxaan ku radaaye busaarada intaad dhaafteen oo noloshiinu wax walba dhaaftay carruurtiinii qaxootiga aad ku wada gurteen. lacag laan iyo nolol laan iyo shaqo laan waddankeena kama jirtee waa caburis gumaysi oo maaragtay maxaan ku radaa waxaa ka jira maxaan ku radaa keligii taliyanimo ah. wixiini aad iska lahaydeen oo nin ku amartaagleenaya oo awood ku tagrifalaya ayaa maxaan ku radaaye yaa silaca idinku wacay. dekadiinii waxay u xidhan tahay axmed madoobe u xidhan tahay inuu wax ka soo dego axmed madoobe uga soo degi laadahay. shabaabka idin dul dhigta sagabada ee dhinac walba idinka taagan ee idin ganacsigiinii xidhay waxay u xidhan tahay axmed madoobe dartiib ay u xidhan tahay sababta iyagu heshiis leeyahay. iyagu kontraad kula jira hadduuna kontraad kula jirin wuu xoreyn kari lahaa dhoob leeyahay afmadoobe iyo kismaayanta u dhaxaysa hadduun dal kaleba yuuna xoreynin. laakiin wuxuu heshiis kuwii ku qanacsan yahay inay nimankaasi waardi u ahaadaan. isagana hadafkiisu wuxuu ahaa dekada kismaayo inuu qabsado oo uu dhiigga idinka jaqo. dekadiina waa haystaa. war maanta fursad baad haysatiin cid idinku soo duulaysa male. dowladdii dhexe idinkiibaa kursigii laydinkaga soo duuli lahaa fadhiya. ka faa'iidaysta shacabow, kaca ka faa'iidaysta. keligii taliyaha iska tuura. keligii taliyaha iska tuura. ha yeelina inaad laydinku sii amartaagleeyo oo keligii taliyaha sii dul saarnaado marna ha yeelina. magaaladii bu'aale waa la xoreynayaa. rajadiinu ha soo noqoto. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intay xilka la wareegayaan taliye Khalid iyo taliyo maxaan ku raadaayay taliyaha cusub hadda la magacaabay intaas odawaa Yuusuf Raage intay xilka la wareegayaan ayaa ka dhiman in la xoreeyo magaaladii bu'aale. ciidankiinana xuquuq baa laydinku samaynayaa. marka waqti iyo chance baa sitiine intaad kacdiin kaca oo iska tuura gumaysigan meesha fadhiya ee maaragtay beenta isu sheegay boqortooyada beenta dhistay aan tuurno. garab baad maanta haysatiin. intan yare caada qaatayaasha ee xildhibaanada ee meesha joogay ee uu soo urursadayna markii horeba taya muusan kusoo xelina dadka u yeenaden sir inuu dad u taliya yihiin oo dad uun isagu meel ka aadi karin oo isagu hadduu tagana aan xuquuq heli karin isagu hadduu tagana maaragtay aqoon iyo saami qayb siyaasadeed aan heli karin inay yihiin waxaa idinku cad waa ninka intuu dad kale iska soo daayay timajarihiisii iyo gabadha cuntada u karinaysa xildhibaano ka dhigay oo midna xildhibaan heer federaal ku tahay midna xildhibaan heer deegaana ku yahay. dhaqanka keligii taliyaha weeyaan. dhaqanka keligii taliyaha weeyaan. dadkaasi waa u xirxiran yihiin. xog buu ka wada hayaa. wuxuu og yahay inayna meel la aadi karin. marka waxaasna yana aqliyadiina sirin yana aqliyadiina qaadanin. waa la soo socdaa dowladdu way idinku soo socotaa. xamse cabdi barre anuunu dhinto war uma hayo oo dawadku waa aragtay maxaan ku radaa in time iska imaan karaa laakiin xamse cabdi barre kismaayo imaanaya uu soo socdaa. wuxuuna ugu soo socdaa inuu madaxweyne Jubbaland u dhiso. isagama soo socdo. sii diyaar garooba. niyadana maaragtay maxaan ku radaa moraalka kor u soo qaada. axmed madoobe iyo heeryadiisa keligii taliyanimo waa la tuurayaa. shacabkana intaasaan leeyahay. nabadoonnada waxaan leeyahay war isku urura oo xilligaa dadka u talin lahaydeen dalka badbaadin lahaydeen baa la marayaaye waxaad noqotiin salaadiintii iyo nabadoonnadii iyo ogaasyadii iyo maaragtay maxaan ku radaa noqda Puntland oo kale noqda. war doorkiina qaata. caada qaatayaal la kala shaxaado oo toban war axmed madoobe intuu isku kin sawiro yo wallaahi billaahi talaxbana yuuna heshiiska axmed qof uu la heshiiyey oo heshiiska si socday maba jiraba bal dib u taariikheeya dadkuu la heshiiyey awe dadku heshiiska la galay hal ruuxa maanta la socday muu jiraa. dhammaan sawirkaas markuu dhaco qofka khalaas bulshadii aad mucaaradka ku haydna waa lagaa soo saaray. axmed madoobena maaragtay maxaan ku radaa khalaas halkaas kugu daynaya sababtaa waa gabadh foodleeya dhaqankeed buu leeyahayo haddii mar aa isku dhacdiin weligii kulama heshiinayo. marka ha isku ceebaynina. ha isku ceebaynina. marka salaaddii maqribka ay noo gaadhay
aad baan idin salaamayaa maxaan ku radaayay qalbiga niyadda kor loo soo qaado isbeddelku waa dhacayaa gumaysigii maarata maxaan ku radaayay maarata maxaan ku radaa keligi taliyuhuna waa dhacayaa keligi taliyo wuu dhacayaa keligi taliyo ku farxa ama ka naaxa keligi taliyo wuu dhacayaa intaasaan idinku soo galay xamse cabdibarrena wuu soo socdaa haddaad ka naxaysiin iyo haddaad ku farxaysiinba aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu